kan hadda aan qaadana click ku sii control s dheh isla markii control s marka dhahdid loo mock up waa kana. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسود والغليج ساني سامرول بكل سعدان علمي كمبيوتر كي برامج من تبعيدها عشر كان وحوك سابسين هاي سيدا لو صدق سيدا موك اب او مرول باديار سان بالبل او بي اس دي بروجكتيس كو قاركود ولا كو قاركود نو فري ان waxaan arki doonaa insha Allah sida loo soo degsanayo sida loo isticmaalayo yaan arki doonaa insha Allah. haddii aad ku cusubtahay channelkeena fadlan subscribe like share asxaabada ugu faa'iideysta adigana aad ka mid noqotid mar walba daawadaha ugu horeeya daawada fiidiyoga aan soo gudbino. okay marka ugu horeyso waxaan tegaynaa browser ka ku jiro website-kii mar raacani inta ku diyaarsaday waxaa la website-ka bstmockapps.com hadda dhahdid waa kan linkiis hadda linkiisna qaybta oo history ayaan soo gelinaa ama qaybta oo commentiga marka hore wax u isticmaalo ayuu ku jiraa. okay mock up anagu hadda waxaan u baahnaa logo oo mock up logo u baahanahay meeshan bst mock up isa ku diyaarsan logooyinka mock up ka intay ku diyaarsan yihiin mid alaale mid kii adig aragtid waa next leedahay midkan hadii ku qancinin waa hoos jiraan way badan yihiin midka alaale midkii adiga is leedahay computerka ama waxa ku isticmaal kartaa you can do it waxa jiro website badan laakiin midkan hadda badan aan isticmaalaa adina waa adeegsan kartaa waana abuuri kartaa mock upska waa cashir aad u fudud laakiin wuxuu baahan yahay kaliya inaad si fiican u dhuuxdid waxyaabo badan aad ugu faa'iideystid. hadda kan hadda aan qaadana click ku sii midkan markaad dooratid click ku sii waa website-kaas linkigiisa waxay isku sug waxa laga yaabaa qadkaada inuu fiican yahay ama inuu xun yahay. hadii qadkaada uu fiican yahay isla markii hor ayaad ka helaysaa waxay soo socod meel yar download ku qoran raaso kadib download eh. okay downloadka qaybtan uu ka bilaabay qaybtan markuu noo soo dego ayaan ku sameynaynaa in aan furfurno kadibna aan waxaan rabnaa aan ka sameysano. okay hadda uu soo degay cabirkiisa waxaad ka raadinaysaa meeshii alaal meesha uu talgashay oo downloadiska available mar walba ku yihiin barnaamijkeena waa kana oo aan soo degsanay waxaan keensanay ama aan soo qaadnay meesha downloadka waxaan keensanay file kale aan ka abuuranay waxaan rabnaa file-ka markuu san yahay waxa comprised way comprised kaas waa inaad kala furtaa right click leedahay extract files leedahay kadibna okay leedahay wax ma ka bedelaysid isla markii uu furmaa file-kaadi markaa furtidna waa kana click si waa kana waa bixintaan akhrisanaysa daarami waa raafaysa click ku si waxaan rabnaa loogada inaan ku sameeyno. okay loogada waxaan rabnaa sidaas markaa dooratid wax dhan ma sameynaysid wax badan ma sameynaysid meesha maxaa ku qoran placeholder click ku siinay okay leedahay. okay markaa dhahdid loogadaada ayaa soo qabsanaysaa waa kana soo drag garay inta cancel control t de cabir isla ku yaray waa kana aspect ratio dooran yahay kadibna loogada dhexdeed u keen kadibna enter dheh inta markaa dhahdid qaybtan xeelaadka qaad macnaha isha ka qale control s dheh isla markii control s markaa dhahdid loo mock up waa kana midka saas oo soo geli kartaa mock upska hadda rabtid mid walba hadda rabtid business cardna waa soo degsanaysaa. hadda business card ayaan fiirinaynaa business card ka waa kana waxyaabo kala duwan inta ku diyaarsan. okay midka alaal hadda midka ugu horeeya kan camal hadda kan naftirkiisa ugu dhufo. okay mock upps website kan waxa laga yaabaa inuu lacag naqdo haduu lacag naqanayn isla markii waa soo degsanaynaa kadibna waan isticmaalaynaa insha Allah. okay website waa kana kadibna download leedahay file-ka
oo bilaaba wait waxay soo kisibna qaybtan downloadka ka bilaaba isla markuu bilaabay cabirkiis waxa baa 61.8 waaye soft mockup iska dhan saasa u raadi kartaa hadaa rabtidna waa ka sii badi kartaa kuwa qaarkood lacag way kuwa qaarkood waa free midka alaal midka adiga is leedahay okay software barnaamijkan uu soo degay waxaan karaasanayna meesha downloadka kadibna faylka kale ayaan geysanayna waa kana intaan keensanay right kliga leedahay extract files leedahay kadibna enter leedahay okay business car mockup okay klik ku sii sida hadda camal u furaysa wax dhib ma ahan okay asiga laakiin wuxuu leeyahay dhowr qaybood mujido okay midkaan u baahanahay klik ku sii hada marka klik ku sii sid qayb kale lagu furaa qaybtaas kale ayaan geysanayna insha Allah textigan hadda waa iska qari kartaa kan sidoo kale waa iska qari kartaa okay waxaan rabnaa hadda inaan soo furano loogadeena tan iska xir qaybta loogada aan tagno akana muftuul dooro jida meeshas kala tagayso kadibna yes control t aspect ratio ku doorin isla markii shift qabani looga inta la ekaysi kadibna inter wax kale adoo ka bedelan waxaan sameyn kartaa kadibna ishan ka qaad kadibna control s waxaa sameysanaysaa business card tagay isla markii waxa la sameeyay waa qaybtan waa lagu soo geliyay wax badan ma qorin ku isdul saaran yihiin colorkaada rabtidna waa ku bedeli kartaa dad saalan sambal xeer ay idin tuso okay disada klik ku sii colorka uu saaran yahay way oo ka bedelaysa mujido isla markii laakiin saameyn wuxuu ku noqonaa kaasi saas oo bedeli kartaa colorkaada intaas ayaan ku soo gogweynaa shirkii aan ku baranaynay sida loo adeegsado ama sida loo isticmaalo mockupiska haddii aad ku cusubtahay channelkeena fadlan subscribe like share si asxaabadan ay ugu faa'iideystaan adigana aad ka mid noqdo mar walba daawadaha ugu horeeya daawada fiidiyoyada aan soo gudbino